بسم الله buugani waa how to win a friend and influence people wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood qayb kasta waxay leedahay mabaadi iyo principles ku dhawaad 30 mabda ayuu buugani soo jeedinayaa afarta qaybood qaybta koowaad waxay ka hadlaysaa waa farsamooyin aasaas ah oo dadka lagu kasbado farsamooyin aasaas u ah kasbashada dadka وإلا صدح فرسمو waxay bilowiyeen sababta fundamental ugu magacaabay amba asaas dhamaan saddexda qaybood oo kala kuwan asaas u ah waa saddex qaybood aad u cidoon oo aad u muhiim ah oo kaligood hadaad weelayso runtii wax badan aad ka faa'iideyso principle-ka amba mabda'a koobaad ee qaybtani waxa weeyaan don't criticize and blame waxba ha cambaareen waxba ha canaanan waxna ha eedeynin intaasu mabda'ani ku salaysay koobaad hadii jeer bini aadan ahaan markaan aragno wax qaldan waxaan jecelahay inaan dhaqso u tilmaamno nidhaahno waxaasaad samaysaa ama waxaasaa qaldan waxa uu leeyahay oo soo qaadanaya bini aadan ahaan xataa inagu sida dabeecadeenu tahay maba jeclinba qaladkiisa qofku inuu sheego oo iscanaanto isagu mar haddaanu qofku iscanaananayn oo aanu jeclayn inuu iscanaanto cid kale in canaantana ma jecla wuxuu soo qaadanaya tusaalayaal ay ka mid yihiin مثلا qof dambiye aad u tiro badan galay oo wax walba qarribay jeel la geliyay dil ku xukuman oo haddana weli taagan anigu wuxuun baa saxayay ama naftaydu ma difaacay hadda intaasoo sanadood wax walba soo qarribay marka haddii kii intaasoo dambiye intaasoo qalada galay weli aanu isku aragba inuu qaladaad galay akhtaada yaree basiidka dadkan jecel ka dhaca inaan degdeg ka tilmaamnay ku canaanana ku eedeynaa waa arrin dhaawacaysa qabka qofkaas dabeetana dadku kaaga fogaanayaan soo qaadanaya xikmad tiraahda haddaad doonayso malabka shinnada guriga ay ku jirto halaadin don't kick off the beehive maxaa dhacaya shinnida iyadoo cadhaysan ka hor iman doontaa way ku qaniini marka beehive-ka amba shinnida gurigeedaasoo kale ayaa qofka qabkiisa iyo iigigiisa uu kadib pride-kiisa u yahay marka qofka markaad canaanato waxay ka dhigan tahay inuu isku diyaariyo self defense inuu qofka isdifaaco markaa you kick over the beehive waxaad laadi gurigiisii laakiin haddaad rabto qofkan malabkaas oo ah qofkan inaad soo dhawaysato kasbato halaadin ee qaab kale qofka wax ugu sheeg oo ha canaananin sidaasoo keliyaad malabka ku guran kartaa oo ah qofkaas qalbigiisa aad ku kasban kartaa dadkan jecel lahaa iyo ubadkeena iyo qoysaskeena iyo asxaabteena iyo shaqaalaheena iyo dadkan maamulna ay ka mid yihiin waa qodob aad u muhiim ah qodobka labaad ama mabda'a labaad ee buugana ka hadlaya waxa weeyaan waa mabda'a ka soo horjeeda oo xalkiisa ah sida opposite-keeda oo ah dadka bogaadi oo ku amaan waxay sameeyaan markii hore maxay nidhi waxba ha canaananin waxna ha eedeynin kan waxa weeyaan bogaadi oo ku amaan waxay sameeyaan sidan weeyaa sida dadku dabeecad ahaan u abuurayeen ay jecel yihiin oo jecel lahay adiga iyo anigu baan jecel lahay qof walbana waa inuu qofka kale naftiisa ka soo qaadaa مثلا haddii aynu eegno nidhaahno waa inaad isweydiiso qodobka si aynu u fahanno horta qofka kale muxuu ugu baahi badan yahay u doonayaa qofku wuxuu ugu baahi badan yahay asaasa cunto iyo hurdo ayaa ka mid ah iyo meel u seexdo iyo amni waa baahiyaha asaaska ah baahiyaha asaaska dadkan jecel lahay waynu siinaa waynu iskugu roonahay laakiin waxaa jirta baahi kale oo kuwa ka yarayno iyadana asaas ah desire to be important waa baahida qofku uu qabo inuu muhiim important so qofkii baahidaas aad ugu sheegaysaa laakiin qaab sincere qaab daacada ayaad u bogaadinaysaa oo aan ahayn mid mujaamilo maran amba fake ah oo xilli aan habboonayn qofka aad iska amaanayso iska bogaadinayso xilli ku munaasaba qofka wanaagga uu sameeyo inaad sheegtid oo hadii jeer waxaan la sugnaa oo dadku markay naga tagaan amba dhintaan ay wanaagyadooda ka sheekeena laakiin intuu qofku ku ag joogo wanaagga uu haysto iyo amaantada uu haysto ma sheegno sida aan canaantaba degdeg ugu sheegno inagoon is ogeyn oo cadhaysan
marka nin Skinner la oran jiray oo psychologist ah oo dadka experimentiska sameeya ama tijaabooyinka ayaa wuxuu xayawaan fara badan ku sameeyo kala duwan marka reward iyo punishment ay noqoto keebo xayawaanku wax baran og yahay oo horumar sameeya wuxuu ogaaday marka ama tijaabada lagu ogaaday rewardka iyo abaalmarinta inuu xayawaanku horumar iyo barashadiisu ka dhaqso badan tahay bini'aadamkuna waa saas oo kale punishmentka waxa kamid ah canaanta iyo eedeynta iyo qaylada iyo wax sheegida iyo dhaliisha ayaa kamid ah iyo cambaareynta waa punish waa ciqaab oo kale rewardka maxaa kamid ah bogaadinta iyo amaanta bogaadinta iyo dhiirigelinta iyo amaanta iyo bini'aadamkuna sida xayawaanka kale ay wax ku baran ogyihiin oo ku horumarin ogyihiin adiguna waxaad doonaysaa in qofkan inuu isbedelo horumar sameeyo soo maaha sababtaas wax u canaananay marka labadaas tan ay wax labada ku bartaan dadka ku horumaraan mabda'a saddexaad ama principle-ka saddexaad waxa weeyaan qaybtan fundamentalka asaaska waa sidii qofka aad ugu kicin lahayd ama ugu abuuri lahayd baahi inuu u baahdo waxa aad la rabto aad doonayso inta badan ganacsatada ayaa qaybta adeegsataa waa wax qoyskaaga iyo meel walba iyo ganacsigaagaba loo adeegsan karo haddii si wanaagsan oo positive loo adeegsadana si fiican u shaqeynaya qodobkan wuxuu sheegayaa markaas sidaad baahida u abuuraysaa baahidaas qofkan waxaana la doonayso inuu u baahdaba marka horeba dabeetana wuxuu soo qaadanayaa qoraagu oo odhanaya matalan tusaale si aynu u fahanno qodobkan haddii aad kalluumaysi tagto oon dabco inaad kalluun soo dabto ama soo qaato soo ugaadhsado kalluun ama malay anigu waxaan jeclay buu odhanayaa strawberry cheese marka ma strawberry cheese-kii aan jeclaa baan qaadanaya kusoo dabanaya kalluunka may buu odhanayaa waa inaan isweydiiyo kalluunka ama malaygu muxuu jecel yahay muxuu doonayaa darxiga anigu darxiga ma jecli laakiin isagaa doonaya darxigaan u geynaya markaa kaasaan kusoo dabanaya bini'aadamkuna waa sidaas oo kale hadii jeer markaad rabto inaad baahi abuurto amba aad wax wanaajiso amba aad ganacsigaaga iyo dhan walba si aad u kasbato horta waa inaad ogaatood baadho horta muxuu qofkani jecel yahay adigoo marka ku lamaanaynaya waxaad adiguna rabtay markaad siiso qofku wuxuu doonayay dabeetana win-win situation waa win-win waa guul labada dhanba ah oo qofkiina aad ku kasbanayso kusoo dhawaysanayso markuu arkay wixii uu doonayay xataa social media haddaan aragna baraha bulshada istaraatiijiyada isticmaala waxaa kamid ah in had iyo jeer news feedska amba agtaada lasoo dhiga waxyaabaha danaysa iyo asxaabtaada iyo waxaad daawata jeceshay waayo way soo ogaadeen technology-ga lagu ogaaday waxyaabaha aad baadhbaadho hore lagu ogaaday kadibna waxaa laguu soo diyaariyay wax kastood jeceshaad doonayso sidaasi waa sida keliya addictive ugu noqonayso oo aad baraha bulshada ugu sii jiri karayso muddo ugu sii jiri karayso marka haddaad doonayso inaan dadka kasbano horta marka hore aan ogaana waxay doonayaan jecel yihiin adigu una ka fikiran waxaad doonayso dadku waxay doonayaan isweydiin dadka dhowr su'aalo isweydiin marka soo cid noocaas ama dad noocaas arrinta rabta inaad ka fikirto horta qofka inaad conversationka si fiican u sii baadhad u sii ogaatid wareysi iyo sheekaad ku ogaatid bal waxyaabuhu danaynayo waxyaabuhu doonayo baahidiis jirto hadhow markaa ganacsigaagii ama baahida xidhiidhka calaaqada qofkaas aad wanaajinayso kasbashada aad rabtid mar haddaad ogaatay wixii uu qofkani doonayay taasaad usoo horumarinaysaa ama ugu soo lamaanaynaysaa wixii kale aad ugu rabtay waa halka ka timid what's in it for me radio stationada ama idaacadaha marka la dhageysanayo waxaa jira YWIAFM wax la yidhaahdo oo ah what is in it for me maxaa aniga igu jira raadioga iyo idaacadda iyo tviyadu waxay ka fikiraan qof kaste horta maxaa ugu jira saa daraadeed bay xataa heese kala duwan barnaamijyo kala duwan qaabo wareysi kala duwan saacado iyo time kala duwan way waxay ogyihiin dadka inay kala baahi duwan yihiin marka qof kasta waa in la helo waxa ugu jira saa daraadeed bay what is in it for me maxaa aniga igu jira marka waa psychology waa taa idaacadana lagu soo baadhay isla psychology halka ka dambeeyay weeye tan ay la xidhiidha saddexda arrimood waa waxyaabaha asaaska ta koobaad oo ah ha canaanan hana eedan hana cabaareen ta labaad oo ah bogaadi oo ku amaan labada waxyaabaha wanaagsan ee qofku sameynaya si daacada iyo tan u dambayso ah horta isweydii wuxuu qofku rabo maaha waxaad adigu rabtid